السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وعن ونكسن داوديال كسر وهذا قضبة وركنه ودور كرون دقيمة ما أنت مركله كبلاودي مقالة عاصمة مامولك تجرجا TPLF أو عيدنا آد وفرابدن كسو داد جورينيسو فريمة هراء دجال ك حويها جود قرامة مدوبي أو ولا كم جي حالة علادات ولي كتاجن دالك إثيوبيا OLA oo ciidamo urusi ku jirto si ay ula dagaalanto xoogga dawladda Itoobiya. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Waxaa maanta mar kale dib uga bilowday magaalada Maqala waa caasimadda maamulka Tigreega. duqeymo aad u xoogan kuwaasi oo diyaaradaha aan duulimaha aan lahayn ay ka fuliyeen gudaha magaalada ilo xog ogaal ah ayaa waxa ay ku waramayaan goobaha la duqeeyay inay yihiin goobaha lagu keydinayay kaalimaha shidaalka ee waliba keedka u ahaa xooga TPLF wali lama hayo warar xaqiiqo ah oo ka soo baxayo halkaasi balse waxa la arkayay uuro qarisay magaalada iyo waliba dad shacab ah oo halkaasi iskaga caraadayay inta badan dawladda Itoobiya ayaa waxa ay ku dhaleeceynaysaa TPLF in ay iyagu ay mas'uul ka yihiin waxa ka dhacayo gobolada Axmaarada iyo Canfarta maalimadii daraad ayay ahayd markii xilli galab ah ay dawladda federaalka Itoobiya ay duqeymo ka bilowday magaalada Maqala waa tan iyo markii laga soo tago duulaankii koowaad ee ku qaaday gobolkaasi dawladda federaalka Itoobiya ayaa maalimadii shalay waxa ay qiratay in ay ka fulisay duqeymo magaalada Maqale kuwaasi oo ay ku sheegtay inay la beegsatay xarumo ay lahaayeen TPLF halkaasi oo ay ka hagayeen dagaalka ay kula jiraan dawladda federaalka ee Itoobiya. haddaba duqeymahan saaka halkaasi ka bilowday ayaa inta badan waxa walaac ka muujiyay shacabka ku nool magaalada Maqale kuwaasi oo cabsi xoogan ay soo food saartay maadaama waayadii uu dambeeyay inta badan ay ku jireen nabadgelyo iyaga oo maalmihii u dambeeyay dagaalka xaggooda uu ka wareegay TPLF dagaalka ay u wareejisay dhanka Axmaarada iyo waliba Canfarta ayna dareemayeen xasilooni nabadgelyo ah balse dawladda Itoobiya ayaa diyaaradaha aan duulimaha aan lahayn ayay waxay ka bilowday inay ku duqeyso gudaha magaalada iyada oo waliba la beegsanayso meel istiraatiiji u ah TPLF ayaa waxa ay ciidamo aad u fara badan ay ku soo daad gureynaysa ama ku soo daabulaysa furimaha hore ee dagaalka TPLF ayaa maalmahani inta badan waxa la arkayay in ay goobaha qaar ee dagaalka uu ka socdo in ay ka gaareysay horumar dhanka istiraatiijiyada ciidanka taasi oo ku sheegtay in ay la wareegaysay goobo muhiim ah ciidamadan aadka u fara badan oo ay ku soo daad gureynayso ayaa inta badan waxa laga yaabaa in ay doonayso in furimo hor leh oo dagaal in ay dib ay u furto sida hadda aan la wada socono ama aan wada ognahay magaalada Dhisay ayaa wali waxa ka socdo madaafiic la isku adeegsanayo halkaasi oo inta badan ciidamada dawladda federaalka Itoobiya ay sheegeen in iyagu ay wali ay gacanta ay ku hayaan TPLFna ay sheeganayso in iyagu ay magaalada ay haystaan balse ilaa loo kalsoon yahay waxa ay sheegayaan in dadka shacabka ay halkaasi ku sugnaa in ay iskaga qaxeen iyada iyo waliba magaalada Kombolcho iyada lafteeda mataqaanay qax xoogan uu ka socdo dadkana ay u cararayaan dhulka miyiga oo ay doonayaan inay kaga nabad galaan dagaalada halkaasi ka socdo inta badan TPLF waxa lagu eedeeyaa in dadka shacabka ee duurka u qaxo in ay dhibaato ay u geysato markii halkaasi ay kula kulmaan manahan markii u horeysay ee TPLF ciidamo aad u fara badan ay ku soo daabulayso furimaha hore ee dagaalka habeen dhaweyd ayay ahayd markii uu Gitajo Rida uu hadlay uuna sheegay in ciidamada TDF ta ay ka geysanayaan furimaha hore ee dagaalka horumar ay ka gaarayaan ciidamada Itoobiyana ay qabanayaan waliba uu sheegay in ciidamadii xoogga lahaa ee militariga dalka Itoobiya inay horay u baabi'iyeen abiina uu dhalinyar yar oo dagaalka aan aqoonin uu ku soo shubayo furimaha hore ee dagaalka habeenimada xalayha mar wax laga weydiiyay duqeymaha laga geystay ama dawladda federaalka Itoobiya ay ka geysatay Maqala ayaa waxa uu qiray in duqeymahaasi ay jiraan waliba ay meela gooba uu ku sheegay in ay lahaayeen shaqaalaha
hay-adaha qaramada midoobay in ay duqaysay dowladda Ethiopia kuwaasi oo waliba uu sheegay in halkaasi ay ugu geysatay dadka rayidka ahaa dhaawacyo iyo waliba dhimasho intaba in ay jiraan. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu walaac uu ka muujiyay xaaladda colaadeed ee wali ka taagan dalka Ethiopia. xogayaha oo xalay warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu walaac xoogan uu ka muujiyay dhibaatada wali kasii taagan Ethiopia isagoo baaq u diray labada dhinac ee dagaalamayo marka hore inay ogolaadaan in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyo dadka shacabka ee dhibaataysan ee waliba gobolka Tigray canfarta iyo waliba can Axmaarada. Antonio Guterres ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay ama ugu baaqay labada dhinac ee dirirta ka dhaxayso in ay wada hadal ay ku dhameeyaan qorina looga fiican yahay balse ay miiska wada hadalka ay imaadaan halkaasina waxoodu ay ku dhameystaan. fariimahan inta badan kasoo yeeray beesha caalamka ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyada oo tan iyo markii Abiy Ahmed mar kale dib loo caleema saaray ama dib loo doortay in uu sii xoojiyay dagaalka uu kula jiro TPLF kuwaasi oo laga dheehan karo in dagaalka uu dib u bilowday iyada oo labada dhinacba ay kala sheeganayaan in ay kala gaareen guulo aad u waaweyn. xagga federaalku waxa ay sheeganayaan inay inta badan horumar ay ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan TPLF ta iyaga oo waliba duqeymo xoogan u wareejiyay dhanka caasimada Tigray ee Maqale. OLA ayaa inta badan waxa ay ku jirtaa in ay urursato dhalinyaro aad u fara badan waliba hub urursi dhalinyaro ay qoranayso ay isku dartay iyada oo waliba doonayso in dagaal xoogan ay ku qaado ciidamada dawladda federaalka ee Ethiopia waa ciidamada militariga iyo kuwa wanta ee la socdo. dawladda Ethiopia ayaa inta badan waxa ay ku jirtaa in ay kala ilaaliso labada urur ee OLA iyo waliba iyo ciidanka TPLF ta waa TDF ta inay kala ilaaliso haddii ay isa soo gaaraan halkaasi ay dawladda Ethiopia dhibaato weyn ooga imaan doonto maadaama nimankan ee gobolka Oromada ay aad uga dagaalayaan shacabka Oromaduna aad ay u jecel yihiin gacan saarna ay leeyihiin TPLF ta haddii ay u suurta gasho in labada jabhad ay isku beeraan halkaasi dhibaato aad u xoogan oo ka imaan doona loona geysan doono qoomiyada Axmaarada oo inta badan la arkayay in dagaalku uu dul hoganayo iyada dagaal ba'an lagula jiro iyada iyo waliba ciidamada federaalka ee Ethiopia. jabhadani ayaa maalinimada shalay waxa ay soo bandhigtay ciidamo fara badan kuwaasi oo ku sheegtay in ay u tababaranayso dagaalka ay kula jirto ciidamada militariga Ethiopia waliba waxa ay sheegtay in ay dhul ballaaran ay la wareegeen maalmihii u dambeeyay dadka deegaankana ay si weyn ay u soo dhaweynayeen. daawadayaal waxa intaasi inooga dhan war wixii dalay dibadda naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intaan warka mid xigo ku kulmina hadii ay baydmo sidaas nabad gel.